maanta ay taariikhdu tahay bisha 11 November waxaa madaxweynuhu isugu yeeray taliyaasha ciidamada qalabka sida ugu horeeyo Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Daahir iyo aniga laftigeyga oo taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana looga wada hadlay madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday hotel Saxaafi iyo amniga caam ahaan sidii loo sugi lahaa halka wuxuu ku bixiyay instructions loo baahan yahay in sidii loo fuliyo waan u soo qaadanay ma qaadan doono mar dambe mana yeelayno in baabuur dad hubaysan ay saaran yihiin checkpoint uu soo galo ayaa mas'uuliyadda qaadanaya dibkii dhaca cid unbaa mas'uuliyadda iskale waxaanu ka bilaabaynaa ciidanka booliiska meelaha taagan checkpoints ka taagan in mas'uuliyadda qaadan doonaan insha Allah in aan u qaban doono ninka ay soo gudbeen inaan yeeli doono baaristiina waa socotaa intii dhimatayna Allah inaga samarsiyo inta dhaawacana Allah caafiyo amnigu waa mas'uuliyad wadareed ummadda dhan ka dhaxaysa marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa dadkan ku talagalay in ummadda Soomaaliyeed gumaadaan oo baabiyaan oo cirib tiraan inay ka hortagaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga caam ahaanba ciidamada oo dhanba